halkaas ku arka rag gabdho dabadood laga soo hadlo laba yiraahdo rag baan shargnay rag waa sarkaysa laguma sii jiri karo waxyaalaha ay Soomaaliland ay ka wado gobolada maalin wanaagsan saaxiibayaal sida ogtiinba waxa magaalada Laascaanood muddada u dhameysay ka socday dagaalo u dhaxeeya maamul goboleedka Soomaaliland iyo shacabka reer Laascaanood maanta waxa ka weydiin doonaa su'aalo shacabka ku nool magaalada Qardho shirkaysimada gobolka Sool waa soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa inuu ka soo baxaan go'aan lagu wada farxo waana waxa weeye ku taageersanahay shirka maantay la qabanayo wixii ka soo baxana de waa midnimo gobolka Sool in ay reer Sool ay tashteen ma ka soo bixi doonta waxaan rajaynayaa de in waxa weeye cid walba oo Soomaaliya ay ku taageerto waxay isimada gobolka Sool ay maanta soo saaraan sidoo aragtaa reer Laascaanood inay sameystaan maamul u gaar ah soo dhaweynaya waliba waxaan qabaa in ay ka soo daaheen inay aayahooda ka tashadaan masiirkooda iyo aayahooda dad bu gacanta ugu jiray habda meel baa loo tuurayay habda maamul goboleed baa loo tuurayay mar la dhaho Puntland baa ka tirsantiin mar la dhaho Soomaaliland oo xoog 15 sano ku haysatay marka waan la dareenahay waan kula farxayaa maanta wixii ay la yimaadaan golaha haba ugu weynaato inay maamul gooni istaag ay ku dhawaaqaan maamulada Galmudug iyo Jubbaland iyo xuma dheeraysan waa dad tashtay marka sidaas si lamida waxaan rajaynayaa inay tashtaan waxaan kaloo rabaa inaan halka kala hadlo ninka hadlaayay meesha leeyahay Gibili oo Raxmaanku ma ogola calanka in la suro Raxmaanku ma ogola calanka in la suro Laascaanood aan ka dilmaano habara waleedahay waan ku sheegay calanka sida loo suray weey waan suraan doonaa insha Allah bidilaahi kariim waligiina laga saarmiyay ka war hadii aad u waadsiisay in Laascaanood leedahay imow waxba gaban rag baa haysta Laascaanood rag baa leh halkaas ku arka rag gabdho dabadood laga soo hadlo laba yiraahdo rag baan shargnay rag waa sarkaysa Raxmaanku inuu ogolaaday in kala laada arki doona hadii alla baxdo gobolada Soomaaliland iyo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay faraha kala baxdo gobolka Soolna waxaan rajaynaynaa inuu aayihiisa dantiisa ka tashado maamul ay ku dhawaaqaanin laguma sii jiri karo waxyaalaha ay Soomaaliland ay ka wado gobolada ay dad intii dib ahayd waa nagaartay wax kale nooguma harin waana soo dhaweynaa shirka garaadada iyo gobolka ICC waana mahadsantahay waa mahadsantahay waa dhawahay marka labaad in arinta Laascaanood shirka ka furmaaya dadka waxaan u aragnaa arin muhiim ah arin masiiriya arin taariikhiya waxaan rajaynaynaa inay guul ka soo baxdo insha Allah waxaan rajaynaynaa guul ummadda halka ku nool ay ku helaan xornimo nabadgelyo midnimo inay ka soo baxdo waana taageersanahay insha Allah iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxdan waa inay ka soo baxaan oo khayr baan rajaynaa aan arkaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sababtoo reer Laascaanood waxa weeye kacdoonkii shacabka inay ka jawaabaaneen dhibaatooyinkii badan oo dhacay inay ka jawaabaaneen isla markaasna inay sameystaan maamul u gaar ah oo iyagu ay leeyihiin oo danahooda ay ku sameysaaneen oo shaqooyinku ay qabsadaaneen sidaas ayaan u baahanahay walaal wax ka wanaagsan ma jiraan meesha yaan wax dhibi ka dhicin dadka haloo turo dadka waxa weeye haloo turo yaan maanta dadka xabad lagu bilaabin wixii la kala tabanayona nimanka ay isimadaas markay go'aankooda soo saaraan ilaa waxa hadda ay soo saarayaanba lama oga iyaga Ilaahay baa isla oge hal la sugo marka hadii lala wada hadlayo wada hadal wax lagu dhamayo laakiin xabad xal ma noqoto nabadgelyo lagu wada noolaado wabillahi tawfiiq sidoo aragtaa inay maamulka Laascaanood ay sameystaan maamul u gaar ah waa wax wanaagsan iyaga waxa weeye dadku inay iyagu ismaamulaan wax ugu wanaagsan ma jiraan iyagu waxa weeye waa dad sida ummadda kale u jidho qoomiyadaha kale u nool yihiin dad u nool weeyo la mid ah ma aha dad iyagu aan iyagu waxba qabsan karin oo waxba ismaamuli karin ma aha marka inay haday iyagu dambidaan inay iyagu ismaamulaan oo ay sameystaan dawlad waa in lagu soo dhaweeyo lagu garabsiiya laakiin waa inaan dhibaato loola iman aad baad mahadsantahay garaad